qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah xukuumadda waddanka Lubnaan ayaa xilligan waxay wada hadal ka leedahay sidii hubka looga dhigi lahaa ururka Xisbullah. Arrintan ayaa laga cabsi qabaa dagaal inay ka dhaliso dalka Lubnaan bacdama ururka reer Lubnaan uu wacd ku maray in hubkiisa uusan dhigin. Qorshahan ayaa la sheegayaa Mareykanka inuu gadaal ka riixayo. Xagga Qazana koox khubaro ah oo ka badan 30 oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in cunaqabatayn lagu soo rogo Israa'iil. Militariga Israa'iil waxay dhankooda sii wadaan duqimaha dadka rayidka ah ee Mareyka Gaza. Xaalad adag ayaa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay Gaza. Dhinaca kale Netanyahu ayaa waxa uu wadaa qorshe ballaaran oo ku aadan sidii dagaalka loo xoojin lahaa iyadoo xilligan kulan ay leeyihiin golaha wasiirada Israa'iil. Waxaa laga hadlayaa qorshaha qabsiga Mareyka Gaza haddii ay suurtagelayso iyo sidoo kale dhaqaalaha ku bixi kara hawshaasi. Ruushka waxaa la sheegayaa inaysan u muuqan in uu dabcayo hanjabaadaha ka imaanaya Donald Trump ee la xiriira dagaalka in la joojiyo iyadoo waqtiga uu qabsaday Trumpna ay ka dhiman tahay 3 maalmood oo qura. Dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay inta hawada ku jirno iyo falaqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta Kamal. American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka. haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada, American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare. waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka. iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda. Maxamed Cabde oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira. Maxamed inoogu bilow wararka kuwada ugu doorka roon. xukuumadda Lubnaan ayaa kulan ku yeelatay madaxtooyada waddanka Lubnaan oo looga wada xaajoonaya sidii lagu xadidi lahaa in agabka military uu ku jiro oo kaliya gacanta dawladda. cadaadis ay dawladda Mareykanku saarayso ayaa waqti kama dambaysa waxaa loo qabtay xukuumadda inay hubka ka dhigto ururka Xisbullah. kulankan oo uu shir gudoominayay madaxweynaha waddanka Lubnaan